Soomaaliya waa wadan la haysto runta marka la sheego ma aha kaliya shabaab Soomaaliya waxay ku jirtaa chapter 7 soo garanaysaan Soomaaliya marka UN-ka waxay uga qoran tahay wadan khatar ku ah al-amni was-silmi ad-duwali amniga iyo nabadda adduunka wadan khatar ku ah bay ku qoran tahay lacagaha marka maanta imisa Puntland ka xayiran baad u malanaysaa boqolaal milyan baa xayiran oo mashaariic u badan institution-ka kali ah oo Soomaaliya federaalka ma taqaan oo immigration-ka dhalinyaradi dawladaha soo gashay dawladaha hoose yaanta dhaweyto oo doorashooyinka ku yimid waxay noqdeen dhalinyarada ugu musuqmaasuq badnaa Soomaa hadda tan u ogolaatay maxaa u diidaysaa 100 milyan oo soo martay inay ku soo gudbiyaan maxaa u diidaysaa waxa la isku hayaa saaxiibow Cabdiqaniyow ma aha sharci iyo nidaam ashkhaas ba is haysta haddaad marka diidid nidaamkii waxaad ku kala baxaysaan garyaqaan la yiraahdo AK47 waxaan galayaa su'aashii saddexaad sida sheegtay waxa tiri Soomaaliya poverty line-ka waxa ka hooseeya 70% shalay miyamse maantaan Facebook waxaan ku arkay dawladda federaalka soo saartay sida goboladu u kala fakhrisan yihiin gobolka Shabeelle aan maleynaya inuu Shabeellada dhexe inuu ugu sareeyo 70% aha marka inkastoo naftirkeeda xogtaas aan hadda la xaqiijin karin laakiin sidee fakhriga baahsan ee Soomaaliya gudaheeda ka jira loo yareyn karaa loo heli karaa dhaqaale cadaalad ah wax la inclusive economy oo ay ka faa'iidaan dhammaan bulshada kan danyarta ah dawladdu naftirkeeda ay maartay ay ka faa'iido kuwa hantida leh oo hantidooda sida sheegaysa hadda la baxaya ay uga faa'iidi karaan sidee marka fakhriga loo yareyn karaa horta dhaqaalaheena culays badan baa haysta culayska dhaqaalaheena haysta inaan maarayno baa horta number 1 ah مثلا culayska dhaqaalaheena haysta maxaa kamid ah waxa kamid ah political instability wadan aan siyaasadii farin can you imagine madaxweyne guulaystay baa maxkamadda sare ee dalka Kenya waxay ku tiri madaxweyne guushaadu been bay ahayd waa lagu celinayaa doorashada markaasuu aqbalay can you imagine marka wadanku inuu political degan yahay institutionskii loo baahnaa oo garsoorkana leeyahay maalin waad maqlayseen dawladda federaalku maxay tiri xasan hala soo qabta Axmed Madoobe soo maahayn maxkamadda hoose ee mataqaana gobolka Banaadir baa soo saartay maxkamadda mid la sinayd oo gobolka mataqaana Kismaayo baa waxay soo saartay xasan sheekh maxamed la soo qabto labada wadaad oo gudbooyo garnaqi doona marka ya ilaan dheerago ahaan jiro go'ashada raadin iyo kii ka gaabnaan jiro haata garab jooga gadakaas yahay buu kala gaarsi leeyahay labada garaad oo gudbooyo garnaqi doona yaa u garnaqi lahaa waxa u garnaqi lahayd maxkamad labadaba ictiraafsan yihiin Soomaa marraba marka xasan sheekh maxamuud ama nin kasta oo isagayana oranin nin kasta oo fariista kursiga federaalka inuu soo saaro maxkamadda dastuurka u dhaxaysay likewise Puntland iyo Somaliland lama ogola in la soo saaro maxkamadda dadka kala saari lahayd qori baa kala marka AK47 baa kala saaraya marka soo sida ma dhicinin ya magaalada geeskeeda waa garanaysaan wixii ka dhacay haddaad marka diidid nidaamkii waxaad ku kala baxaysaan garyaqaan la yiraahdo AK47 marka number 1 horta wadanku waa inuu political stable yahay waa inay jiraan hay'adaha garsoorka oo wax kala saari kara haddaan hay'adii garsoorka oo maxkamadda sare iyo maxkamadda suruga ugu horeeyaan aysan jirinin oo aniga adigu aynan kala bixi karinin hadda waxaynu kala baxaynaa waa garanaysaan waa qodobka labaad waxa weeye security issues Soomaaliya waa wadan la haysto runta marka la sheego ma aha kaliya shabaab Soomaaliya waxay ku jirtaa chapter 7 soo garanaysaan chapter 7 waliga ma maqasheen balcaaw hala Google gareeyo chapter 7 waxa la galiyaa wadankii khatar ku ah amniga adduunka Soomaaliya marka UN-ka waxay uga qoran tahay wadan khatar ku ah al-amni was-silmi ad-duwali amniga iyo nabadda adduunka wadan khatar ku ah bay ku qoran tahay taas marka macnaheedu waa maxay sovereignty-geena iyo madax banaanideena waa dhantaalan tahay marka waay Soomaaliya loogu soo magacaabay Iswaan waay Iswaan UN-ka tagaya oo warbixinta Soomaaliya u bixinay madaxweynaha Soomaaliya uu soo bixin karin madaxweynaha Soomaaliya waa imaana waa lagu qoslaaya waa la dhageysanaa laakiin Iswaan baa la dhageysanaa James Swan SRSG ga la dhageysanaya maxaa yeelay wadanka sovereignty-giisu ma aha intact ma marka inaynu security-geena maxaa la ma la yamliku quutahu لا يملك قرار لا يملك قراره
qofkan quudkiisa ku filayn qaraarkiisa kuma filla markii aan ka hadlayay meeshii qodobkii ahaa trade imbalance-ga ama trade deficit-ka waxaan hilmaamay Soomaaliya qof wuxuu isleeyahay oo sidee haddaan 5 bilyan bixiyay 6 bilyan bixiyay aniguna ay soo gashay 1.3 milyan seebaan dhaqaalaha halkee aad wax kale ka keenay waxaan ka keenay remittance Soomaaliya sanad kasta waxa soo galay 6 bilyan ku dhawaad oo xawaalada maaha mid inaga shirkadaanu keenaan laba nooc waxa jira remittances mid waxa weeye midda dadka loo soo diro 2 bilyan waay taqriiban 2 bilyan 200 milyan meelahaas waay markay ugu badan tahay waxa jira 3 bilyan oo adduunku soo galiya Soomaaliya sanad kasta marka 3 bilyan waxay soo martaa xawaaladaheena iyo meelaha la midka bangiyadeena marka actually lacagta aynu bixin alayna ma arkan waa hore lacagta 6 bilyan ah ayaanu ku daboolaa marka political stability security wadankeena waxa jooga boqolaal hay-adood oo ka shaqeeya amniga oo cid xukunta aysan jirin waxa jira niman jooga xalane oo awood u leh inay xalane ka soo baxaan iyagoo baabuurtooda wata oo ay tagaan dayniile oo ay ka soo tagaan oo ay tagaan kaaraan oo ay ku soo noqdaan xiradooda oo inta satellite-ka ay ku shaqeynayaan oo la leeyahay halka ka leexda halka mara meeshii uu taagan yahay wiil yar oo qori haysta waa laga leexinayaa iyagoona xabad lagu ridin waa cadaan anu waxa arkay iyagoo u xiraya baabuurtooda wata waxay tagayaan magaalada geeskeeda kale xamar oo dhan waa umaabin bay u leedahay magbuujeeda maxay noogu caawin waayeen waa in anaga noogu caawin anagu security-geen waa ilaa 2007 ay noo joogaan 11 kun oo ciidan ah oo billions ay ku baxdo oo ciidankeena lagu maalgelin waayo security-geena gacanteena kuma jiro who is going to trust you marka ninka maalka gashanaya ninkee way waxyaala dhaqaalaha challenge-kan haystay ka mid tahay waxaa ka mid ah weak infrastructure halkan ka tag dekada inaan noogu caansan xamar ba iska daa dekada noogu caansan Boosaaso way dekadaas Boosaaso marka la adabari majid baa jira ma jiro beesha hadda nimanka lagu la dirirayo Boosaaso 60 kilomitir bay u jirtaa laakiin imise ciidanku soo jareen 300 iyo 40 kilomitir bay soo jareen dusha Boosaaso joogan hadda toga afkiisa marka laga togo bahalki jid male bari oo dhan gobolka ugu qanisanaa Soomaaliya Puntland ugu qanisanaa oo timirta ka soo baxda ay ku filan tahay in la indhoofino oo faleenka ka soo baxaya jid malaha soo soco xagga Cerigabo jid ma jirto iska daamahay kii maynka ahaa oo dagaalkacayo isku xiriir halka istaag habeenkii baabuurta waad arkaysaa Sooma waxa baabuur sanka isku haya waxay ka imanayaan Wardheer iyo Galaadi iyo Jigjiga iyo Beledweyne qaar baa waxay ka imanayaan ilaa iyo beled xaweenayaan baa laga yaabaa jidka mar adiga kulligiis oo dhan waxa way 600 kilomitir 700 kilomitir ka badna waliba burbur xoog leh ku jiro waxa ka taagan kulli waa wada jeedaan marka haddii wadanku infrastructure uusan lahayn iyaduna waa cilad kale oo khatar ah oo dalka dhaqaalihiisa burburinaysa waxa kale oo ka mid ah dependency on exports wadanku hadduu ku xiran yahay wuxuu la soo degayo wasaan lahayn ma la yimliku quutahu la yimliku qaraarahu waxa kale oo ka mid ah hadduusan wadanku lahayn xirfadlayaal korontadii ma keensan kartid biyihii ma keensan kartid mataqaanaa dhismihii ma keensan kartid kulligood waxaa ku khasbantay dad ajnabi inaad keensato suuq baynu hadda u furmi doonaa East Africa Community la yiraahdo yaa ka cilanaya wadankan haddii anagu shaqaalaba aynaan haysan xataa xirfadihi aan dhaqaanay diyaar uma nihin qofka xirfadaana maxaa loo yaqaanaa nasabkiisa wax laga sheego qofka xirfadlaha ahaa oo dadka hoggaanka u ahaa oo noqon la calaamada noqon la ugu dambeyn waxaa ka mid ah low domestic revenue dakhliga oo soo xar maxaa yeelay waxaan jirin trustiga ay ganacsatada ku qabaan marka su'aasha aan u soo noqday maadaama dhaqaalaheenu shockiskaas waliba waxaad ka saartaa marka la yiraahdo waxyaalaha hadda soo noqonayo ah climate shockiska oo iyaduna mushkiladeeda hadda wadata oo dhici ka dhabeerihi oo soo baxaya in daadka lagu soo daayo oo marka beeraha dhanba ay ku baaba'aan waxaasoo dhan waxay keenaysaa in dhaqaalaha dalkeenu hoos taagan yahay haddaynaan marka reverse garayn oo dhinaca kale u wareejin suurtagal maaha waxa ugu muhiimsan laba shay bay ku wareegi kartaa hoggaan wanaagsan oo dadka iyo dalkan wuxuu taraya garanaya iyo system saxa oo dalka ka dhisan hoggaan fiican hadduu yahay laakiin system uusan jirinin ma shaqaynayso soo nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam inna allaha yas'u bisultaani ma la yas'u bilqur'aan
suldaanku wuxuu qaban karaa buu nabigu yiri ilaahay ku qaban karo ku celin karaa waxaan qofka quraanku wuxuusan celin karin maxay rasuuldu leey suldadaas marka waa inay legitimate waa inay sharciyada haysataa waana inay institutionska loo baana haysataa waxa layna baray inaynu ilaahay ka barino walaa tusallid calayna bidunubina man laa yakhaafuka walaa yarxamuna ilaahu ha nagu salladin mida annagana noo naxariisanayn adigana kaa baqayn marka haddii aadan leadership helinin haddaada institutions helin yaana maqaal baan qoray waa ku noqon kartaan wareer news baa soo daabacday waxaa la yidhaha federalism without viable institutions maxaa la isugu qabsanayaa nidaamka dalka waxaa la isugu qabsanaya maxaa yeelay institutionski lagu kala bixi lahaa oo maxkamaddii sare ugu horreyso oo maxkamaddii dastuuriga ay ku jirto oo hanti dhowrkii uu ku jiro oo uu ku jiro guddigii procurement waddanka wuxuu soo gadanayo oo dhan ee mas-uuliyadda ka lahaa oo baarlamaankii uu ku jiro oo bangiga wuxuu ku jiro oo auditor generalkii uu ku jiro institutionskii independentiga ahaa oo garyaqaankii uu ku jiro baa maqan ilaa la helana waddankani kalsooni lagu maalgashada heli maayo dadkeennuna lacagta waa gurayaan anaa kuu sheegaya qofkii 100,000 hela wuxuu la aadayaa East Africa waxaan jeclaan lahaa in maanta ay mas-uuliyiintu si fiican u dhageystaan qodobadaas muhiimka ah runtii inaga dhan bayna saameynayaano waxaa jiray wasiirka qodob sheegay oo dakhliga hoos u dhaca nin baa Facebook kusoo qoray laakiin ma xaqiijin karo wuxuu yidhi markii nimanka dagaalka lagu qaaday Daesh bariiskii iyo burkii iyo baastadii canshuur weyn baa ka dhacday oo aad u fiican marka wuxuu yidhi bariiskaas ma iyagaa toos u qaadan jiray su-aal buu isweydiiyey dowladdu ilaa hadda kama jawaabin adigana mar waa inaan ku weydiiyo su-aashaas waa kasii gudbayaa dowrka ganacsatada ama private sectorka ay ku leeyihiin gobaca dhaqaalaha waa dowr weyn oo ognahay bal waxaa wax yar faahfaahin naga siisaa dowrka ay ciyaari karaan iyadoo aan sheegnay in dowladdii tabarteedu iska yar tahay dhaqaalaha waddanka inta badan banaanka uu ka imaanayo private sector dowr teeleeg bay ciyaari karaan horta private sectorku waa sector muhiima waaye adduunka waxaa lagu kala hormaray private sectorka awoodiisa iyo capacitygiisa iyo dhaqaalihiisa maxaa yeelay dakhliga waxaynu nir ugu badan oo dowladdeena soo gala wuxuu ka yimaada cashuurtana waxaa bixiya ganacsatada iyo dadweynaha dabcan dowladday u qabtaan inagayna saaraan laakiin dowladday u qabtaan marka meeshii uu jiro dhaqaale iyo private sector xoog leh wuxuu keenayaa in dhaqaalaha waddankaasi uu kor u kaco waxaa kaloo jira waxaa la ogaadaa adduunka private sectorku inuu dhinaca efficiencyga iyo effectiveness-ka dowladda kaga fiican yahay dalalka adduunka dhan marka waxay bilaabeen xataa waxyaalihii dowladdu essential ay lahayd in privateka lagu wareejiyo waxbarashadii caafimaadkii korontadii biyihii privateku waxay rabaan inkaar bay qabaan profit oriented profit bay raadinayaan maxay oran jireen rabi xarkaysa rixi ma eegto marka roolka dawladda waxa weeye in la qabto nimankan oo aysan qolada biyaha rag baa nagala joogaan u malaynaya korontada waa nala kala joogaa caawaan u malaynaya haddii layna ku sii daayay maxay nagu samaynaya waxay nagu samaynaya inaanaan bixin karin marka waxaa la rabaa iyaga kaga fiican dawladda in loo dhiibo xagga wax soo saarka iyo shaqada private sectorka waxbarashada waa la mid dawladdii Soomaaliyeed waxbarashada iyadu ti gaaray u tixgelinaysay waxbarashaduna free bay ahayd inkastoo maanta aysan suurtagal ahayn waxbarasho free ee la helo maanta suurtagal ma maxaa yeelay lacagtay u baahan tahay primary-ga kaliya ayaa inta dhow JRS-ki waa laga aqoon baday waxa lagu yiri 35 milyan oo dollar ayay waaridku ku bixiyaan tacliinta hoose ilaa tacliinta dhexe marka anigu waxaan garanayaa waqtigaan joogay 14 milyan bay ahayd dugsiga hoose dhexe dhaqaalaha waaridku ay bixiyaan marka haddii dawladdu maanta ma keeni karo dhaqaalahaas private sectorka wuxuu kaloo private sector kaga fiican yahay xagga efficiency-ga waxay inay qabtaan dawladda waxaa laga yaabaa mashruuc yar haddii loo dhiibo inay ku daahdo employment-ga xagga shaqagelinta Soomaaliya dawladda imisa u shaqayn karta dawladda waxaa u shaqayn dad aan ka badnayn 2,000 laakiin private sectorku wuxuu qaadan karaa 100,000 ayuu shaqaaleyn karaa xirfad siin karaa wax ka bedeli karaa xataa wuxuu keeni karaa meelaha inagu aynu hadda ku horeyno industry telecommunication-ka iyo digital business-ka iyo meelo badan baynu kaga horeynaa kana raqiisanahay inagu marka loo fiirsho hadda telefoonada internetka oo kale waxyaalaha kale muhiimka waxa ka mid ahaa waxa loo yaqaan microfinance-ga dadka productive-ka waa in la maalgeliyo hadda maalin la weyd waxaan u maleynayaa hadda kuma noqon karo maxaadara jirtaan ka jeediyay meeshii shirki jaamacadaha
oo ku saabsanaa hay-adaha ka shaqeeya maalgelinta millions oo lacag ah oo lagu soo saari lahaa in dadka productive-ka la geliyo ayaa waxaa la gelinaya dadka in lagaga soo saaro productive sectorka xoolihii laga soo kaxeeyo beerihii laga soo kaxeeyo $60 $70 $50 baa la siinayaa bil kasta markaas waxaa loo samaynayaa coosh xuno fool xuno jidka bannaankiisa ku yaallo isaguba uusan seexan qaar badanoo magaalada degan baa halkaa marka lacagta bixinaya aada xataa degrading baa lagu samaynaya ama dehumanization millionskaas haddii productive sectorka la gelin lahaa wax weyn bay tari lahayd war dalka Rwanda bad ma laha waa landlocked waay Rwanda tira ahaana waa 12 milyan 3 milyan baan ka badannahay jamhuuriyadda marka la yidhaahdo Soomaalidu ilaa 35 milyan bay geeska Afrika gaaraan laakiin jamhuuriyadda haddaan u fiirino 4 milyan baan ka badan waxay galeen dagaalkii ugu xumaa 1 milyan bay iska dileen 4 bilood gudahood mataqaanaa GDP-geedu intuu yahay GDP-gooda 14 bilyan wey Soomaaliya oo 3,300 kilomitir oo xeebaa leh imagine Soomaaliya oo laba webi ay maraan Soomaaliya oo biyaha aad aragto dhulkeena mara kulli togaas garow biyaha soo marahay baday ku dhamaadaan waxa tog aad maqasho bari ku yaala kulli baday ku wada dhamaadaan waxaynu kaga faa'iideysan karnaa kalluunka dalkeena mara inta uu leeyahay haddaynan dalkeena maal gashanin ka bixi mayno faqri ka bixi mayno waxa laba dhalinyarada fikir kale in ka qabo oo qof walba inuu xafiis fariisto suurtagal ma waa inaynu shaqo galno waa inaan xirfad yeelano mihankan aan yeelano waxaa la rabaa in la helo hay-adahan balaayado dalka jooga oo dadka ka saaraya agriculture-kii iyo ka saaraya waa inay ku celiyaan waxaa jira institutions fiican oo microfinance-ga sameeya oo dadka $1,000 iyo $2,000 iyo siinaya oo dadku ay soo celiyaan oo dad badan ay ka faa'iideen runtii waxaa jira kuwa kale oo malaayiin haya oo ciddii ka qaadan lahayd lalaaya maxaa yeele waxaa leeyahay haddaad 2,000 qaadanaysid waa inaad keentaa damiin waa inaad keentaa ama waa inaad keentaa dhul iyo sheer aad golisku dadka hore sheer bay golis ku leeyihiin iyo dahabshir iyo ku leeyihiin iyo tawfiiq kuma laha dadka horena dhul ma wada laha annaga kuwa aan damaanani baa nagu gooyo inaan bixinayn noqoto marka waa in la helaa mechanism dawladdu ay ka qayb qaadato dhalinyarada oo kale in lagu maal la siiyo microfinance la lacagtan soo celiya productive sameey shaqooyinka oo dhan waa la haystaa marka waxyaalaha dhaqaalaha waddan kobcin kara waxyaalaha sheegay baa kamid ah waqtiga si aan noogu ilaaliyo waxaan rabaa inaan su-aal kala raaciyo dhanka private sector-ka oo ah sidee loo heli karaa ama loo heli karaa mashaariic ka dhexeeya dawladda iyo private sector-ka waxaa loo yaqaano BB-da oo maaragtay ganacsatada Soomaaliya lagu dhiirigelin karaa inay maaragtay mashaariicda dawladdu la gasho ma dhanka dawladda laga rabaa inay ka yimaadaan ma dhanka ganacsatada aad bay ugu yaryihiin deegaanadeena in la arko mashruuc ay dawladda wada fulinayaan kuwa waxaa jira ay ahayd in dawladda iyo private-ku ay wada fuliyaan oo moodo inay private-ku isa siiyeen marka see loo heli karaa dowrkaas maqan horta waxoo dhan waxay isugu imaanaysaa kalsoonida dawladda lagu qabo horta masalada ogaada ganacsaduhu waxay dawladda kula shirgoobayaan hadday dawladda ku kalsoon yihiin haddii system jiro ninkaan madaxda berri waa tegayaa system shaqaynaya oo ay ku kala bixi karaan berrito ninka ganacsadaha ahi wuxuu ku dhisan yahay waqti dheer inuu faa'iido helo wuxuu ku dhisan yahay business kasta inuu kobco waa inuu helaa partner sax annaga hadda daraasadaan samaynay hadda ka hor 2018 ee ku saabsanay tacliinta sare sidee dawladda iyo private ku wadaagi karaan macnaha waxaan isu keenay shirkadaha ee dalka jooga iyo jaamacaadka oo dhan waa laga yaabaa dad halka inay ka qayb galeen Dr. Maxamed waa laga yaabaa inuu joogay waxaa soo baxday inaysan xiriir balahayn ganacsatada iyo jaamacaadku dariiq parallel ay ku socdaan jaamacaadkuna ma yiraahdaan war waxaasaan rabnaa xataa kuwa dhaqaalaha haysa golis oo kale iyo dahabshiil oo kale iyo tawfiiqo inay war waxaan noo samaysaan shirkado noo tababara dadka مثلا technicalka noo tababara kuwa wax dhisa kuwa telecommunication ku jira oo jaamacaadka ay maal galiyaan adduunka jaamacaadka adduunka oo dhan shirkadaha maal galiya Microsoft wuxuu maal iyo Boeing iyo jaamacada dhan bay maal galiyaan maxay la waxay dad farsamo yaqaan ay u baahan yihiin loo soo baxo marka waxay inay shirkaduhu yimaadaan dawladda oo yiraahdaan mashruucaas baan wada gallo jid baa la dhisayaa hadda waddankeena oo haddii ganacsada loo ogolaan lahaa oo faa'iido loo saari lahaa waa dhisi lahaayeen dadku waa dhisi lahaayeen dekad hadday noqoto airport hadday noqoto dad badan baa diyaar oo kale diyaar baan u nahay marka anigu waxaan is leeyahay meesha dhibaatadu ka jira number 1
وكالسونيدا لغو قبا النظام كالدولي محايا لو حاكوكو فلان ويلكا محكمة جوجة إنو كحرا أما كسو عيريا ما كوكو فلان انت الدعوة دي أردن توقاته وطوره سمينا مقال دعوة محكمة الدولة هوسي أي ديدي oo cid xukuntay oo tii ku xigtay cid xukuntay oo rafcaanka cid xukuntay oo tii sare markay tagtay dib loogu soo celiyay meeshii ugu dambeysay qof leeyahay warranty loo jaro la soo qabto haddana leeyahay warranty-ga waa ka noqonay la leeyahay dib aan uga noqonay marka kalsoonida dawladda lagu qabo iyo nidaamka lagu qabo ayaa ganacsatada ku dhiirigelin kara inay dawladda la shirkoodo lambar laba waxa weeye aan ku darayaa ganacsatadana waxaa laga rabaa in iyaga laftigooda waxa jira wax la yiraahdo luqadda ingiriisiga social responsibility shirkadaha adduunka dhaqasab baa laga dhigaa hadda ama corporate responsibility shirkad kasta oo corporate level ah waxaa khasab inay ka hadasho bay'adda iyo bulshada waxay u qabatay waxaa lagu daraya warbixinta shaqada marka shirkaduhu waa inay noqdaan social responsibility hormuud baa saxiixdaan maqlay Soomaaliya saxiixa iyo dhaqangelintu waa laba shay waay shirkadda waxaa laga rabaa inay ka muuqato inay hadda misaal baa idin siinaya magaalada markaad aadaan qof walba soo biyo macabo biyaha cagadaha ku jira magaalada gudaheeda cagada wax yaala maaragteen shirkadihii biyahan soo saaray soo inay mas'uuliyad iska qaadaan ma ahayn inay caagay soo saareen aruuriyaan soo ma ahayn inay caaga gubaan waxay caagan weliga baabi'i maayo 10 sano caagaasi ma baaba'ayo meeshuu oo laaya magaaladii oo dhan waxaa laqay caag baa laqay misaal kaliya waaye aan siin karaa marka fikradaha waxaa laga rabaa iyagana inay social responsibility muujiyaan shirkadu wixii ay khalada iyada laga rabaa inay saxdo shirkada biyaha waxaa laga rabaa shirkadaha constructionka dhagaxa iyo waxay daadinayaan iyaga la hore inay qaadaan shirkadaha qashinka iyaga laga rabaa inay qaadaan qolo kasta waxaa laga rabaa inay la timaado inay mas'uul ka tahay marka ayay imanaysaa qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa dad in la helo aqoonti leh dawladdii iyo shirkadihii isu keeni kara sektorkaas dadkii buuxin lahaana waa loo baahan yahay maxaa yeelay haddaan la isqabadsiin dawladduna meel bay u socotaa lacag bay rabtaa ganacsaduna faa'iido rabaa marka in la isqabadsiiyo oo dadka isku xiri lahaa la helo iyana qodob kale weeyaan islaam su'aal ii qornayd oo aan rabay inaan ku weydiiyo baan dhan kale u dhigaya hadeer oo ah ganacsatadu waa guurayaan sida sheegtay wasiir oo wixii dhaqaale heli karay waddanka waa ka saaraya oo habeen dhaweyd gudoomiye kamid gudoomiyada bangiyada Puntland baa wuxuu sheegay in si public u sheegay in ganacsatadu aad waddanka dhaqaalaha uga saarayaan waliba sanadadan dambe si ka badan sidii hore marka arintaasi waa wax jira waa daahiro jidha qof walba oo Soomaali ah oo reer Puntland ah uu jeedo in qofkii shilin heli kara inuu banaanka u saarayo sida Zambia Kenya wadamada Afrika inuu ku dhow dhaqaalihi la geenay marka dhaqaalaha guuraya saameyn buu ku leeyahay dadkii dalka joogay iyo capacity wax iibsashada wax oo dhan baa hoos u dhacaysa marka dawladdu waa sheegtay hadeer oo ku laabamayno doorkeeda ganacsatada maxaa fariin u diraysaa inay ka qayb qaadan karaan ay joojiyaan macnaha waxaan ay hadda ay sameynayaan waa inay banaanka u saaraan iyagoo ribix raadinaya wax rabay bal qaabka ay ganacsatadu iyagu u maareyn karaan horta marka gar loo hadlo ganacsatadu laba shay waa inay helaan amni waa inay helaan sharciyad saan soo sheegna waa inay helaan kalsooni ay waddanka ku maalgashan karaan qofka xoolihiisa inuu ku khamaaro qofna kulama talin kartid marka in principle xaq bay u leeyihiin xoolahoodii weeye xaq bay u leeyihiin waddankay ka sameeyeen iyo kama sameeyeen another issue wax kale weeye anigu waxaan isleeyahay inta iyaga la maagayo ama iyaga la eedaynayo waxaa la rabaa in daraasad laga sameeyo sababta dadkaani waddanka uga cararaya anigu waxaan ogahay dad shaqaysta oo waddanka weli ka shaqaysta laakiin ilmahoodii qaatay maxaa yeelay waxay rajaxumo ka muujiyeen caafimaadkii waxbarashadii bay rajaxumo ka muujiyeen dadka qaarkood iyagoo waddankii ka shaqaysta ayay haddana waxay bilaabeen in ay dhaqaalahoodii qayb ka mida diversification qayb ka mida ay dibadda geystaan maxaa yeelay waxay arkeen inay heli karaan ribix ka badan horaan u sheegnay in ribix arkaysa rixi ma egto marka anigu waxaan isleeyahay ha loo diyaariyo dawladda waxaa laga rabaa inay u diyaariso environmentigii dadka ganacsatada joogana ay ku hayn lahaayeen kuwa baqana ay keeni lahaayeen waqti waxaa jira trend uu bilowday dad fara badan oo Soomaaliyeed inay waddanka soo noqonayeen lacagta waddanka soo gelinayeen dadka hadda dhistay dekada galcad maalgelin 70 milyan maaha dad waddanka jooga ma intooda badan dad badan oo kamid ah dibadii lacagta ay kala yimaadeen dadka Nairobi dhisayaahi
oo boqolaalka guri dhis kumanaanka guri dhisayahay lacagta dibadda kala yimaadeen laakiin waxay aaminsan guri inay ijaar u helayaan waxay aaminsan inay lacagtooda u soo noqonayso waxay aaminsan inay faa'iido ka helayaan marka anigu waxaan leeyahay intaynaan ganacsada la hadlinin inaynu la hadallo institutionskeena dawladeed inay wax ka bedelaan qaabkay hadda u shaqaynayaan inagu hadda waxaan u shaqaynaynaa qaab shirkad ah runta haddaad doonaysid marka yacni runta la sheego mana aha puntland keliya somaliland waa ku jirtaa dowladda federaalka waa ku jirtaa shirkad baa la maamulaya dowladdu intaas wey wax ka dambeeya oo xeerar ah ninka maalinta kursigaa yimaado ba wuxuu bilaabayaa inuu shaatiga tosho siduu kursigaa weliga u fadhin laha nin walba wuxuu rabaa siyaad bare allah u naxariiste inuu iska dhigo caynaanka hay weliga ahay ma soo marteen idinku ana khasab bayna qaadnay ahay mawj cimrigii jiriyow caynaanka hay inaan nidhaahno subax kasta inaan qaadnay marka nin walba wuxuu rabaa inuu iska dhigo siyaad bare oo hadda dhashay wuxuu rabaa dalka isagu inuu fariisto wuxuu rabaa inuu maamulo wuxuu rabaa inuu doorashadiisa maalinta dowladda federaalka ka soo qaad ninka maalinta la dhaariyo habeenkeedii wuxuu bilaabayaa siduu isagu doorashada soo socda ugu guulaysan lahaa maamuladuna waa la mid dalka sidaasa oo projectiga ah oo family businesska ah oo mataqaana qofku isagu ka fekeraya dantiisa oo sidaan sheegay ilaahayna aynu ka barinay ilaahu ha nagu salladin qof aan noo naxayn annagana mataqaana dalkaas cidna maalgashan mayso dadka soomaalida lacagta waa kala tegayaan kuwa dibaddana waxba keensan maayaan marka inagu waa inaan isticmaal inna laha laa yuqayiru maa biqowmin waa inaan bedelaa qaabkan businesska u samaynayno dowladdeenna inay hagaagtaan rabnaa waa garab taagannahay inaan la talinaan rabnaa waa inay isbeddeshaa baarlamaankeennu waa inuu isbeddelaa hay-adaheenna cadaaladda waa inay isbeddelaan hay-adaha ganacsada u dhaxaysa waa inay isbeddelaan waxyaalaha waa in ganacsada fursado badan la siiyaa magaaladan dhul lama gadi karo guri boos yaroo ay shirkad inay gadato 300 kun baa laga hadlaya dowladdu shirkadda gelinaysa 300 kun warshad bay ku dhisi kadhaa waa inay dhulka siisaa dhulka yaa iskala horta dowladda iskala sooma qof kastana waa ka qaadi kadhaa dowladda maxay marka suldada u qaadan weyd xataa laba uma kala qaadi kadho dhul GPS leh baa la isku haystaa dhul maxkamaddu xukuntay baa la isku haystaa inta haddaysan xukmin karinin ninka ganacsadaha malkasa ma gelinayo meesha marka waa inaan taa bedelaa oo xeerarkii iyo institutionskii dadkaan xaqooda siin lahaa waxaan ku qanacsanahay malaayiin dollar baa soomaaliya la keeni doona insha allah oo soomaalida kaliya aan ahay waxaan u gudbayaa dhankan iyo federaalka iyo maamul goboleedyada su-aal ku saabsan oo ah fiscal federalismka soomaalidu waa ku heshiin laadahay intii federaalka aan qaadanay 20 sano iyo intii dastuurku inoo qornaa maxaa is leedahay waa qodobada ugu waaweyn ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ugu heshiin laayihiin nidaamka fiscal federalismku uu leeyahay oo la rabay in mar hore laga heshiiyo si waddanka ay u dhaqaaqdo waxaan la yiraahdo cajaladiisa dhaqaalaha horta aniga jaanibka siyaasiga ma raba inaan ka hadlo dowlad baa joogta iyaga ka hadlaya anigu jaanibka dhaqaalaha markaan ka hadlo horta fiscal federalismku waxa weeye asal ahaan macnihiisu waxa weeye sida dowladaha federaalka u wadaagaan resourceska iyo dakhliga intaas weeye waxay u baahan tahay heshiis ay ka galaan maxaa yeelay isku dakhli maaha dowladuhu qaabkay u dhisan yihiin isku dakhli maaha dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka isku dakhli maaha waxaa la rabaa marka waddankuna dakhli buu leeyahay waddanka waxaa soo gala mataqaanaa revenues maxaa yeelay grantiska layna siinayahay dakhli bay ugu jiraan kan bay ugu jiraan miisaaniyadda marka sida loo qaybsanayo waa in laga helaa nidaam loo dhan yahay heshiisna lagu yahay fiscal federalismka waxaa ka mid ah maalan cashuuraha in la mideeyo cashuuraha in la mideeyo waxay u baahan tahay waxa lagala soo degaya dalku inuu isu furan yahay oo boosaaso iyo beledwey mataqaanaa berbera iyo muqdisho iyo kismaayo in la mideeyo cashuurtooda waxaa ka horeysa inay horta marka hore isu furan yihiin isku ganacsada alaab kala soo dego ogow ganacsataa muqdishona kala soo dega berberana kala soo dega boosaasona kala soo dega haddaysan marka isku cashuurna lagama qaado fiscal federalism waxyaalaha ugu horeeya weeye waxaa ka mid a waxa loo yaqaano intergovernmental transfers lacagta soomaaliya la siiyo see baa loo qaybsanayaa maalan wanaga hadda ka hadlaynay miisaaniyadda dowladda dhexe waxaa lagu heshiiyey dowladda puntlandna qayb bay ka ahay waxaa lagu heshiiyey dakhliga soomaaliya la siiyo inuu soo malo single treasury oo dowladda dhexe ah puntland waa sax
markii applicationkii la gaaray oo lacagtii soo bilaabatay bay Puntland waxay kuma jirno anagu yeelimayn lacagta waa in toos bangiyaga loogu soo shubaa bangiga Puntland adduunka meel uu ka rajista garaysan ma jiro ISBN xataa ma laha ISBN number oo ay amal bank leedahay ma laha taa isaga waxa la yawar ayara wixiina waa helaysaa laakiin Soomaaliya hal mar meel baa lacagta loo soo marinaya dawladda Puntland waa saxiixday dawladdan laftigeeda xilligood hore sax lacagaha marka maanta imisa Puntland ka xayiran baad u malanaysaa boqolaal milyan baa xayiran oo mashaariic u badan oo waxay u xayiran yihiin lambar 1 ay ka tahay waa in anaga marka hore lagu soo marin maayo maxay yeelay maalin baa lagu soo marin jiray adiga saxiixay in dawladda dhexe la soo mariyo waxaana lagu ballan qaaday dawladda dhexe soo martay laakiin waxaaga waa lagu soo gudbinaya mashaariicdoodana waa sidaas hadaa tira marka dhulkii lay siiyay iyo jidkii lay siiyay iyo dekadii lay siiyay iyo korontadii lay siiyay aniga la ii dhiibaya yaa ku dhiibaya ku trust gareynaya adiga who's going to trust you 100 milyan baa lagu trust gareyn waayay 200 milyan oo waxa loo dhibay UNICEF iyo Save the Children iyo waxa loo dhibay bahalkii ayaa bixinaya si adiga lagu dhiibaya 100 milyan iyo 200 milyan 300 milyan si lagu dhiibaya marka dhibaatada kaliya maaha dawladda dhexe siyaasi kaliya maaha war wixii xataa lagu heshiiyey baan diyaar loo ahayn xataa in la fuliyo waxa kaloo kamid ah waxyaalaha fiscal federalismka ee base-ka u ah oo marka laga hadlayo la raba in la tixgeliyo waxa la yiraahdo legal framework waynaga hadda ka hadlaynay maxkamadda lagu kala baxaya waxay ahayd maxkamad inay jirto madaxweynaha federaalka soo qaban karta madaxweynaha ee soo qaban karta goboleedka waa inay jirtaa si ay u soo qabato dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka waa in maxkamadda ku kalsoon yihiin Soomaa laakiin maxkamadda aad wiilka keensatay mana igu xukumaysaa mana igu xukumaysaa maxkamadda jaamacad keensatay adiga ku shaqeeya mana igu xukumaysaa marka legal framework-gina waa maqan yahay anigu waxaan isleeyahay markaan siyaasadda kaba tagaba war dhaqaalaha xataa aan ku heshiino war adduunka cayr baan nahay aid baan ku nool nahay waxa layna siiya xataa aan si fiican u qaybsano adduunka wuxuu leeyahay maya war maxay isku haystaan xoolaha ma leeyihiin idinka waxay yiraahdaan labadaas qaydka isku haystaan maxay yiraahdeen hooyadood sidaas laga sheegay jira anigu hadda maamaada ma yahay waa iga maqan tahay marka wixii adduunku xataa nasiib qaybsada layna kala ay oo adiguna xamar hadii awood lagu siiyo xiran yaa xaq ku siinaad joojiso mashaariicdan oo xamar ku haysato yaa ku siiyo awood ma leeyahay war adiguna aniga way soo martaa oran waa helaysaa u siidaa oo dawladda dhex awood hadda immigration ka fiiri institution ka kali ah oo Soomaaliya federaalka ma taqaan oo immigration ka waa عاوينا باسبور وبهتي وبهنا حمرات وبهنا قروة تماد قلدوغ بات كقادن كرتا بو هودلات كقادنيسا لاسعنات كقادنيسا برنبات كقادنيسا جرين بات كقادنيسا وانا ويق بو كان مقنا وانا لغو كينايا وانا لغو كرسين دولة فدرال كابا بحيسا باسبور كنا ايغا صودرة فرحان ايغا قادنيا ايغا نكوسو ديبيا هدا تنو اوغلاتي محاو ديليسا 100 مليار oo soo martay inay ku soo gudbiyaan maxaw diilaysa maxay ka goynaysaa adiga maxay ka goynaysaa marka meeshan waxa la isku hayaa saaxiibow Cabdiqaniyow ma aha sharci iyo nidaam ashxaas ba is haysta Soomaaliya dawladnimadeeda ashxaas ba isku haysta federalismka adduunka waa la yaqaana institutions bulay midaal baa idin siinaya 2020kii Australia wadanka la yiraahdo wuxuu ka kooban yahay 6 state iyo 2 territory waa federal waa 6 state dawlad goboleed iyo 2 territory labada territory waxa weeye dadka laga tira badan yahay oo wadanka loogu yimid aborigines dadka la yiraahdo territory bay isma maamuli karaan baa dawladda dhaxal hooskay caasimadana waxa la gobol ma sheegan karo dawladda dhaxal hooskay soo ma jeed labadaasi waa 2 territory oo dawladda dhaxal hoos yimaada iyo 5 maamul goboleed waa tii coronavirus ku yimid waxa la bilaabay magaalooyinka la kala xiro states kana la kala xiro waa la isqabtay waxa la yiri yaa xiraya state nuusan u gudbinin yaa sixiriya magaalo inaysan magaalo u gudbinin dawladda federaalka waxay tiri annaga ayaa iskale maxaa yeelay waa national threat waa khatar qawmi ah way waa dalkeena oo laga soo galay law yacdo ama laga soo galay mataqaana galdagob laga soo galay dawladda federaalka bay waajib ku tahay inay difaacdo lambar 1 iyadoo waajib ku tahay ama badda laga soo galay garacdi suuji garmaal iyadoo waajib ku tahay lambar 1 maamuladu waxay amay annaga enforcega booliiska qabanaya
meeshaan military ma joogo ciidan dowladda dhexe ay leedahay waxaa jooga booliiska maamul goboleedyada annagaa xirayna maamul goboleedyada maxkamadda sare la isla aaday maxkamadda sare waxay tiri maadaama ciidanka qaanuunka enforce garaynaya ay ciidanka stateka yihiin meesha la xirayo iyo gobollada la kala xirayo waxaa maamulaya stateka period hadal dambe kama imaan that's where the institutions work marka institutionsku shaqaynayaan waa sidaas oo kale weeye kenyana waa inaga sheegnay madaxweyne guulaystay baa maxkamadda sare waxay ku xukuntay guushiisa inay tahay null and void hadalkii baan xasuustaa uu yidhi Uhuru Kenyatta wuxuu yidhi inkastoo aan ku khilaafsanahay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo tiimka maxkamadda sare go'aankooda inkastoo aan ku khilaafsanahay haddana waxaan ku khasbanahay inaan ku qanco oo ku tartamo marka that's where the system is working marka haddaan systemkaasi shaqaynaynin dad baa hadda waxay caayayaan federalismka maxay leeyihiin confederal baa la aadaya waa qolo waalan waa confederal dalka in la kala gooyo waa literally confederalka wax ka dhexeeya ma jiraan haddaad confederal maqashid maraykanka mar ahaan jiray confederates ba states baa la oran jiray ma shaqaynaya yidhaan confederatesku states baa laga dhiga marka federalismka marka adeer ma shaqayn waayine institutionska shaqayn waayaa lala'aya puntland oo aad joogtid in laga soo rara xamar awoodda waa rabtaa maxaa garow ugu haystaa marka awoodda xamar laga soo raray waa inaad ogolaataa awooddaasi inay tagto boosaaso waa inaad ogolaataa inay baran tagto waa inaad ogolaataa inay tagto galdogob waa inaad ogolaataa inay jiriman tagto waa inaad ogolaataa inay tagto caluula aniga faa'iida igu jirta maxay tahay ama adiga kugu jirta in awooddii laga soo qaado xamar oo la keeno garowe maxaa kugu jira faa'iida ama baydhabo la geeyo ama kismaayo la geeyo wax faa'iida ku jira maxay tahay wax faa'iida kuma jira marka qof isaga aan diyaar u ahayn nidaamka inuu fuliyo federalismka ayaa wuxuu leeyahay waxaan ka tegayaa oo dalka mid kale aan qaadanaya federalismku waa nidaam shaqaynaya adduunku ka shaqeeya intaasoo waddan baa ku shaqeeya laakiin wuxuu u baahan yahay kow institutionskii lagu kala bixlaa buu u baahan yahay haddaysan jirinina ma shaqaynayo adduunkana ogaada system xun ma jiro noocu doono ha ahaado centralization xataa ma xuma haddii si sax loogu dhaqmo ma xuma xamed jaamacadda ummadda soomaaliya waagii dowladdii siyaad barre gobol kasta kowtu ku lahaa ardada hargeysa ka timaada lambar bay ku leeyihiin loogu talagalay ardada ka timaada baydhabo lambar bay ku lahaa ardada ka timaada gaalkacyo ardada boosaaso ka timaada weliba sakanka jaamacadaha ardada ka timaada gobollada la siin jira lacagna waa loogu dari jira waa shaqaynaysaa marka maantana jaamacadda ummad baa la furay baa lagu leeyahay yay u shaqaysaa jaamacadda ummadda marka institutionist baa ama shaqayn waayo ama shaqeeya laakiin system sidiisa u xuni ma jiro waxaan rabnaa inaan dadka qayb uga tagno dhowr su-aalada yaryar ba ay haray inaan soo koobno waan jeclahay bilowgii waxaa noogu dartay introductionka inaad auditor tahay soomaalida gudaheeda waa yar tahay qof musuqmaasuq loo xiray waa dhaweyd marbaa xamar ka bilaabatay in dad la xiro dadka wax laisku raacay publica ahaa in boosas lagu banaysanayay marka matin ilaa cirib baa musuqmaasuq heshiis ku ah soomaalida maxaa loo waayay haddii xataa qofka awoodda lahaa isagu uu ku jiro inuu tiimka ka hooseeyo uu awood u leeyahay ciddii waddada ka leexata inuu xiri karo ama sharciga marsiin karo in isla xisaabtan hay-adaha dowladda uu dhex mari waayo arrintan maxaa loo waayay adoo aada u soo koobay cabdiqaniyo su-aasha waxaan waa ka jawaabay adduunka institutions baa shaqeeya markaan ka hadlayay institutionska transparency institutionska adduunka shaqeeya waxaa lambar one ka ah hanti dhowrka guud waa inuu independent yahay waxaa ka mid a bangiga dhexe waa inuu independent yahay waxaa ka mid a xeerlaalinta iyo maxkamadda waa inay independent yihiin waxaa ka mid a baarlamaanka waa inuu independent yahay oo dowladda independent ka yahay waxaa ka mid ah procurement officeka ama officeka alaabta dowladda usoo gada institutionskaas haddaysan jirinin sababtaysan u jirin waa garanaysa wixii dhaqankeena ah oo musuqmaasuqa Soomaaliya waa meheradeedii iyo waxaasi daawo isla ogna laakiin waxaan ku qanacsanahay intii khibradaydu tahay waxaan ku qanacsanahay where there is an institution then there is a law meesha institution jiro qaanuun baa ka jira meesha institution jirinin si kasta u niyad fiicno si kasta cabdiqani adigoo ilo khayra systemka markaa gashoora ka raacaysa maxaa yeelay systemka u design garaysan in sida u dhaqantid dhalinyaradii dowladaha soo gashay dowladaha hoose yaantii dhaweyto oo doorashooyinkii ku yimid
waxay noqdeen dhalinyarada ugu musuqmaasuq badnaa sooma hadda hal council oo shaqeeya waa lalaay maari waxay ku dhegayiin maayarkii why because waxay u haystaan mushaar la qaadanayo councilada mushaar laguma qaato ogaada haddaad tartamaysaan mushaarkana waa inaad qaadataan hadda mustaqbalka council ogaada mushaar laguma qaato mana loogu talagelin maalintaa shiraysaan beerdhiyamkiini qadadiinaa leedihi 5 maalmood 6 maalmood 3 bilood waxaa loogu talagalay counciliska dad noloshooda haysta oo dadka shacabkooda iyo dadkooda wax ku soo celiya dhalinyaradana marka waxaa rabaa in la fahamsiiyo hadday markay ku baraarugeen maayarkii bay ku dhegan yihiin shilinkii soo dhax waxaa lay qaybi marka institutionskii waa inay jiraan anigu su-aashan waxaan ku gaabinayaa haddaa institutions la helin wax hagaagayaa ma jiraan waa jawaab waafiya waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo dhinaca khayraadka soomaaliya oo weliba shidaalkaan rabaa inaan kaa weydiiyo oo dowladda soomaaliya ay u saxiixday waddanka turkiga marka shidaalka laleeyahay waa lasoo saarayaa adigoo hadda aada uga dhawaajiyay in hay-ada aysan inoo dhisnayn ma la isdhihi karaa runtii waa halis weyn oo ummadda kusoo socota mise waa fursad horta shidaal maynaan soo saarin weli maynaan arag waa iska theoretical weeye waa run soomaaliya khayraad badan baa ku jira oo shidaalku runtii number xoog le ka yahay sababo siyaasadeed iyo sababo geopoliticalana loo soo saari waayey soomaaliya looga soo saari waayey sideeda waxaa jira waxaa la yidhaahdaa khayraadka marka laga hadlayo natural curse ama yani musiibadii dabiiciga ahayd miyaa la odhan karaa yani adduunka dalalka shidaalka ka soo baxay dalalna waa ku khasaareen kuwalan waa ku noolaadeen dal walbana siduu u maareeyo bay ku xidhantay anigu waxaan odhan karaa haddii si fiican loo maareeyo dhaqaalaheennu wax ka bedelayaa shaqo abuur buu samaynayaa dakhli buu soo saarayaa infrastructurekii baa ku soo noqonaya dekada iyo airboraan helaynaa jidad waaweyn oo highways baan helaynaa wax weyn buu soomaaliya u qaban karaa haddii si fiican oo transparenty ah oo xeerar ah lagu maamulo haddii kalena wuxuu noqon doonaa waxaan eedno musiibo aan eednu noqon doonaa nigeria waa dalalka ugu qanisan adduunka marka laga hadlay khayraadka laakiin dhulkoodii oo dhan waa baaba'ay environmentally shirkadihii soo saarayay hal shay dhulal dhan webiyaal dhan baa waxay noqdeen shidaal sabaynaya markaasaa beerihii baabeen markaasaa hantidii baaba'day markaasaa corruptionkii dalka baabiiyey marka khayraadku by itself ma aha guul maaha in la soo saarana sideeda guul maaha waxaa guula in si saxa loo soo saaro xeerar laga galo lagu dhaqmo xeerarkaas hal shay waa baraarujinaya waa dhaweyto markii laga hadlayay dhinacii cost recoveryga dad badan baa ku khaldamay waaga dhaweyto waxaa kale jira waxa la yidhaahdo profit sharing agreement oo faa'iido wadaag baa la yidhaahdaa iyo waxa la yidhaahdaa cost recovery agreement shirkadda adigu inaad lacag leedahay oo ceelkan kula soo baxdo adaa iskale lacagtaada shirkadda kuu qada marka faa'iidadaa wadaagaysaan waxaa gelaysaan waxa weeye profit sharing agreement laakiin haddaadan waxba haysan oo shirkad kuu timaado oy ku tiraahdo anaa soo saaraya xaq waxay u leedahay inay ku tiraahdo kharashkii iga galay eerli baan la soo baxaya oo dakhliga soo baxayoo hore 70% ama 80 anaa qaadanaya ilaa aan kharashkayga soo ceshado waaga dhawata marka aad baa loogu khaldamay heshiiska dowladda federaalku gashay inkastoo heshiis qarsoon uu ahaa haddana wuxuu ka hadlayay cost recovery agreement kama hadlaynin profit sharing dad badan baa marka arrintaa kala garan waayey oo ku khaldamay waxay ahayd shirkadda inay tiri kharashkayga turkiga baan la soo noqonaya weliba adduunka 75 baa lagu heshiiyaa iyadoo waxay tiri 90% baan la soo noqonaya waa lagu heshiin karaa laakiin problem wuxuu ka dhacay problem waxa weeye maxaa kharash noqonaya baa meesha taal hadda waxaa kharasha wax alla wixii shirkadda turkiga too dallacto baa kharasha markab haddaan lala ogeyn xataa markabka qodaya ama baaraya hadda ma qodaya sismiga samaynaya baarista waxaa waardiyeynaysa ilaa 3 markab oo kale oo ciidamada 3 markab kharashkooda waa ku jira dowladda Soomaaliyeedna lagama weydiin ma lagu daraa mise lagu dari maayo marka khaladka jira ma aha inay shirkaddu lacagteeda soo ceshanayso
waxa weeye maxaa kharash noqonaya iyo sidee loo qaadanaya. marka haddaan soo koobo waxaa la rabaa khayraadka dalka in la soo saaro waa loo baahan yahay. inaynu dahab inagoo ku fadhina ku dhimanno waxaa ka fiican inaan 20% ama 30 ka helo noolaano soo ma inaan dahab ku dul dhimanno inagoo ku fadhina inaan wax la soo baxno oo ku noolaana ka fiican. laakiin waa in laga fekeraa xeerarkeedii waa cadaaladeeda waa in la helaa waana in systemkii beecada lagu badbaadin lahaa waa in la helaa xoolaha ka soo baxayana miisaaniyadii mar lahaayeen oo saxda ahayd waa in la helaa. anigu waxaan isleeyahay labada wajibo way noqon seef dul xadayna waa seef laba afla ah shidaalku xag iyo xagaba waa u dhici karaa. su-aasha xigta waxa weeye sidee ayuu isbedelka cimilada waxa loo yiraahdo climate change-ga iyo dhaqaalihii caalamka uga imaan jiray Soomaaliya oo gabaabsi ku jira ama yaraadayba ay saameyn iyo colaadahan isu soo tarayo oo amoodin in gobolka Soomaaliya ka tirsan maanta ay colaada ka jiraan sidee ay u saameynayaan dhaqaalaha Soomaalida? horta waxbaan ka soo taabtay already waxyaalaha dhaqaalaha Soomaaliya hortaagan waxaa ka mid ahaa climate shock waxaan u bixinay ama yani saameynta ka imaanaysa isbedelka culimada wadanka cimilada wadankeena already waa ka muuqataa isbedelkaasi hadday noqon lahayd daadadka iska socda iyo hadday noqon lahayd mataqaanaa cayaanada imaanaya iyo hadday noqon lahayd bi'adeena oo isbedelaysa oo runtii hadda kulaylka magaalada Garowe ay ahayd maalmihii la soo dhaafay 38 buu ahaa degree Celsius Boosaaso 34 bay ahayd Berbera 33 bay ahayd Jabuuti 33 bay ahayd wax badan ma marka adduunka iska bedelaya dhinaca kale faa'iido ka wada tayo energy ayaa laga keeni karaa. anigu waxaan isleeyahay anigu ma ihi environmentalist ama qof ku takhasusay ma ihi laakiin intaan ka ogahay dhaqaale ahaan saameyn weyn bay Soomaaliya ku yeelan kartaa arrinta mataqaanaa bi'ada shockiska ka dhacaya haddaan loo helinin dawlad maaraysa wasaaraday leeyihiin maamuladu wasaaradii dowladda dhex leedahay malaayiin lacaga loo qoondeeyay Afrika iyo adduunka looga qoondeeyay malaayiintaasi meesha ku dhacday la hadeer ma naqaan wax cimilada looga bedelan ma aragno biyahaasna dhex maraya togeena baan joojin laanahay iska daa wax kale. marka wadankan khatarta ugu weyn saan soo sheegnay waa security-ga sharci la'aanta isbedelka cimilada iyo maamul xumada. inta haddaan xal loo helinin wadankani gadaal buu joogayaa dad fara badan baa jira oo beecada ku takhasusay su'aalaha intooda kale ama ka jawaabi kara. su-aashan waxay ku saabsan tahay dhaqaalaha ku dhisan tiknoolajiyadda ama waxaan loo yaqaano e-commerce-ga iyo forex-ka cryptocurrency-ga shirkadaha Soomaalida waxaa ognahay shirkado badan oo tiknoolajiyada fiican bay Soomaalidu leedahay aad bay dhanka ugu fiican yihiin laakiin sidee dhaqaalahaas adduunku maanta billions trillions baa laga hadlaa inay dhex maraan dhaqaalaha sidee marka dhalinyarada Soomaaliyeed ama dawladda Soomaaliyeed looga faa'iideysan karaa dhaqaalaha? horta waa kala qaybinaynaa dhaqaalaha ku dhisan digitalka iyo innovationka iyo teknolojiyada dhaqaale runtii saameyn weyn la weeye. dhaqaalahaasi kulligii wax wada fiican ma aha. dhaqaalahan hadda lacagahan cryptocurrency-ga la yiraahday iyo khamaarka iyo balaayada socota anigu kuwaas waxaan qabaa in negative forex-ka intiisa badan inay negative yihiin laakiin innovationka xagga teknolojiyada oo lagu horumarinayo isgaarsiinta oo lagu horumarinayo payment systemka hadda waxyaalaha dalkeenu unique ku yahay. imagine dal aan lacag local currency lahayn oo lacagtu isticmaalaya ay tahay lacag foreign isagu uusan lahayn oo haddana shaqaynaya waxa suurtagelaya waxa weeye lacagta inuu virtualka oo isticmaalayno ama sahal dheh ama saad dheh ama ma garanaysa EVC-ga leh dheh ama waxa tiraahdaa maaragtay dahabka lacagahaasi virtualka waxay sahleen inaynu wax kala gadan karno inaynu lacag isdhaafsan karno inaynu wax iibin karno waxna soo iibsan karno. anigu waxaan qabaa Soomaaliya waxyaalaha keena inay shaqaysay ka mid tahay dadka qaarkood waa maqlay iyagoo leh lacagaha hawada maraya technologically hawada u marayaan laakiin lacaga aan jirin ma dad baa hadda kor waxaan weydiiyey Microsoft maaha McDonald's kada la yiraahdo ninkii iska lahaa aniga ma weydiin isaga anigu mid kale aan weydiiyey ayaa wuxuu weydiiyay dad fara badan wuxuu yahay McDonald's hantida ugu weyn oo haystaa waa maxay
markaasaa dadku waxay yidhaahdeen waa cheese burger iyo hamburger iyo wax la midkaa baa lala aaday wixii may real estate waa adduunka every store ama every shop ama every restaurant oo McDonald's ku yaala iyaga iskale sidaa daraaddeed hantidooda ma guurtada millions way anigu golis baan ka shaqeeyey xog baan ka hayaa lacagta ay hayso oo sahalka maraysaa idin sheegi maayo laakiin waxaa ku filan 4-5 hanti oo ay leedahay ku filan guriga Boosaaso iyo Garowe iyo Kalxayda la isku daro waa ku filanta lacagtaas hantida ugu badan golis leedahay taawarada ma real estate waa la mid hormud waa la mid zaad dahabshil waa la mid marka lacagtani waa lacag leh underlying asset adduunka waxa la isku hayaa lacagta ay bangiyadu bixinayaan paymentiga ugu horeeya ba underlying asset iskale inta kale wax asset ka hooseeya malaha ama guarantee u ah male laakiin lacagahan wadankeena marayahay waxay leeyihiin waa lacag guarantee ah oo underlying asset iskale marka dhaqaalaheena runtii wax weyn bay ka bedeleen markaad qof u sheegto tiraahid maano nima waxaan ku yiri anigu 3 sano la soo dhaafay lacag gacanteeda kuma qaban la dollar wala shilin wala lacag kale how come aw wax u gadanaysay waxaan ku yiri from shah to shirt waxaan kala baxaa mobilkayaan ka bixiya amazing way adduunka waa la yaabay Safaricom ayaa hadda kor bangiyadu dacwo u soo gudbiyeen dawladda Kenya waxay yiraahdeen ayaga la wareegay client-iga oo dhan waa in la ka qabtaa wasaaradda maaliyadda lacag badan baan bixinaa anagu bangiyada hadda cashuura shaqaale badan ma shaqaaleynaa wadanka waa maal gelinaa badqa waxay ku yiraahdeen waxay ku yiraahdeen Safaricom waa Burmaris Bank waa ninka faqiirka ama gabadha faqiirada ama lacag yar haysta bangigoodii weeye marka daabiyada geysaan tuulooyinka markaad geysaan ayaanu joojinaynaa beer farac waa inaad ka furtaan xaafad ka soo kamida tuulooyinka gabadha maanta joogta mataqaluula dukaanka ku haysata Boosaasay la hadlaysaa heblay waxa ii soo dhibtaa intaas lacagteedana waa u tuuraysa gaari baa u qaadahaya waxaad arkaysaa jidka baadiyaha alaabta la wali ma aragteen wareer baadiyo intay dalbadeen jidka loo dhigaya wallahi inaan qofna qaadanayn sokortii iyo biyihii iyo saliidii oo magaalada ay ka dalbadeen oo hal gaar intuu qaado jidka uu dhigayo marka anigu waxaan qabaa arrimaha wadankeenu la dhaqdhaqaaqayo yaan colaal loo qaadin yaan been leedin sheeg wadankan hal maal haday fariisato 6 saac haday shaqadahaasi fariistaan hal makhaayad oo furnaanaysa iyo hal shidaal oo furnaanaya ma jiro maxaa yeelay wadankeena lacag ma haysano lacag in la soo saaro khasab iyo Soomaaliya waxa soo saarayaana ma aha Puntland iyo Somaliland mid bay samaystay waa dawladda dhexe dastuurka in 2012 markaan faarina maxaan dhahnaa Garowe 2 inaga ku qornay oo ogolaanay lacagta waxa soo saari kara dawladda dhexe bariso maxdu wasiirku soo tooso yiraahdo lacag ma soo daabacaya ma ka yeelayna sida baasaboorka aan uga yeelin baan uga yeelin lacagtan dadka marka in been loo sheega ma marka lacagaha digitalka laakiin khatarta jirta waxa weey waana ka digayaa khamaarka dalka haysta oo digitalka ah lacagaha forex-ka millions baa lagu dhacay Soomaaliya millions lacagaha cryptocurrency-ga iyo kuwa la midka bitcoin-ka malaayiin baa lagu dhacay xeer qabanaya ma jiro dawladda hoos yimaadaan ma jiro cid maamulaysa ma jiro cid joojin karana ma jirto khatartooda ay leeyihiin waxana qabaa ilaa la helo sharciyo lagu xakameyn karo inaan dalkeena loo ogolaan laakiin lacagaha localka oo digitalka ah lacagahaasi wadankan maanta waa u baahan yahay waliba markaynu xataa lacag daabacano waa u baahnaan doon su-aashii ugu dambeysay maan rabaa inaan galo wasiir cali haddii hoggaanka dalka lagu dhiibi maanta oo dad badani caawa aad uga hadashay maaragtay sida ahaan lahayd maxaad ka bedeli lahayd miisaaniyadda sida hadda loo maamulo sida dhaqaaluhu dalka u shaqeeyo waxaan rabaa inaad rajo gelisid jiilka dhalinyarada hadda jooga oo wadanka aad maaragtay uga rajo dhigay bal sida wax u qaban lahayd adoo su-aashaas anaa si shakhsiga ku weydiinaya taas horta su-aasha waa igu gaaday su-aal lagu talagalay ma ahayn hadda ka hor baa waxaa dhacday Quebec waa gobol ka tirsan Canada weligood waxay rabteen inay go'do sida Soomaaliland oo kale weey Francis bay ku hadlaan Ingiriis kuma hadlaan waa gobol kaliya oo Canada French speaking ah nin marka waxay dabcan inay ku dhawaaqaan goosasho
waddanka marka waxaa u ah prime minister nin oran jiray John Christian Soomaalidu waxay u taqaan islaamaha Soomaaliya marka baasaboorka la siinayo marka la weydiiyo afqalooc bay yaqaan Sheekh Abdinaasir baa garanay waa kii afka qalloocnaa prime minister ah bay yiraahdaan nin balaayaab u ahaa Quebec buu ka yimid markaas waxa lagu yiri su'aal wariya wuxuu ku yiri Quebec waxay ku dhawaaqday inay go'ayso maxaa sameynaysaa mahmaabu ka tagay marka wuxuu yiri just watch me bal ifiri buu yiri markaan saan ula tacaamulo marka su'aashaas marka la idhiyo bal ifiri insha Allah